بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرقدونك حرباننا مرتي شرفك مشرحينتا عيدك أمنك نمان وحدك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب قدومية أنا وعبد فارح لغني شراوي وعن هالكن كسو بالدنيا برنامج كيك مشاحنمو كدب مركي أن أوغادي عقباتها هي دليلوين كجيرة دولة قبلات هرشبة لنعيد مامورك أمنيك iyo dhaqaalaha eebana aan tala saartay waxaan go'aansaday in aan isku soo taago xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka Hirshabeelle si aan khibradeyda iyo aragnimadeyda ugu adeego samata bixinta shacbigayga. aragtida guud iyo ajandahayga muhiimka oo ah maamulkayga waa sidan haddii alla idmo sida aad qoraalka ku arkaysaanba qodobada barnaamijkayga waxa ay kala yihiin kow maamul wanaag iyo dhismo xukuumad taya leh, labo nabadgelyada iyo xasiloonida degmooyinka Hirshabeelle, saddex garsoorka iyo hirgelinta sharciga, afar dhab u heshiisiinta, shan dib u dhiska Hirshabeelle, lix kobcinta dhaqaalaha, toddoba adeega arrimaha bulshada. waxaan doonayaa haddii aad isiisaan codka kalsoonidiina oo ah awoodda aad u leedihiin in aad isbeddel dhab ah samaysaan, waxaan ahamiyadda koowaad siin doonaa arrimaha soo socda oo ah aragtida ku salaysan sida ummad looga rari lahaa xaalad qallafsan dhan kasta ee ay ku jirto, loogana rari lahaa xaalad leh xasilooni iyo deganaan iyo kala dambayn sharcigu sarreeya. hase yeeshee waxaa loo diyaarinayaa qorshe horumareed oo dhammaystiran si loo gaaro hiigsiga himilooyinkeena dhabta ah. haddaba xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa si guud iyadoo barnaamijkeedu sidaa yahay in aad codka isiisaan si aan ugu adeego bulshada reer Hirshabeelle anoo aaminsan waayo aragnimada iyo muddada aan soo shaqeeyey bulshada dhexdeeda inaan ka bixi karo shaqada iyada ah una soo istaagay anoo aan waxba ku doonayn. waxaana codsanaya iga aqbali doontaan. Soomaaliya ha noolaato, Hirshabeelle ha noolaato, Hirshabeelle ha noolaato. idinkuna xildhibaanada Hirshabeelle xilkiina allaha idinku garab galo. guuleysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.